Sahamiye Foundation ayaa soo gabagabeeyay wajigii labaad ee lacagihii loo qaybiyay dumarkii danyarta ah ee khasaaruhu ka soo gaaray gubashadii suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa. lacag isugeynteedu ay dhan tahay 313,700 oo dollar ayaa loo kala diray 761 qof iyadoo wajigii oo hore lacag la guddoonsiiyay 410 qof oo toddobaadkii hore lacag loo diray iyo 351 oo toddobaadkan la gaarsiiyay lacagaha deeqdaasi. hawshan oo la bilaabay 2 cisho kadib markii suuqa Waaheen uu gubtay waxay caawisay dumarka danyarta ah ee aan waayuhu ku simi karayn inta gudiyadu bilaabayaan bixinta lacagaha. ganacsatada yaryar ee lacagahaasi helay waxay durba kordhiyeen dhaqdhaqaaqii ganacsi sida khudaarta oo aad hoos ugu dhacay markii suuqu gubtay. dadkan danyarta ah ee lacagtaasi la gaarsiiyay Sahamiye Foundation waxay uga mahadnaqeen deeqdaasi uu gaarsiiyay. aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Hodan Xasan Muuse oo suuqa Waaheen ka ganacsan jirtay. alaabtaydi xabada joogaaso 5 galaan ku jiro oo subagi kaasoo 5 galaan ku jira baa la iga saaray 10 shirikaana way ahaayeen subagaygu. alxamdulillah haddaan naftayda kala baxday bakeeri malqacad oo kala leeyga saarin xaalada $500 bay soo gaadhay. saaka alaabtii bad baan ku soo iibsaday badna deyn baan iskaga bixinayaa subagayga gubtay deynkiisa ma damcayna iskaga bixiyo intaanay deygu bixin xaas leebaan hayaan waxba haysanay deydana waa mahadsantii. anigoo Saarac way sidaana oo kamid ahaa ganacsatada Waaheen waxyeelada soo gaadhay imkana lacagtii la nasiiyay si fiican oo soo gaadhay shaqadina halka ka bilownay waan idinkana waan idin mahad celinayna aakhirada adduunyada waan idin mahad celinayna noolaada. dabku anaga nama qabsanin laakiin jaarka iyaga ayaa gubtay. hadii jaarkaygu gubtayna intii la qaxday way barakacday ayaanu ahayn. alaabtayadii inna waa la balaqaystay inna way maxaan raday booskii bay ku dantay askarta anaga celisay meelan u soo maraan weynay halkii bay ku dintay ayga cidlada baan u qaxnay. ما شاء الله lacagtii la noogu tuuracayna waa la nasiiyay waana ku shaqaysanay imika oo waanaga ku shaqaynayna emeeradii dib ugu soo noqonay. alxamdulillah rabbil caalamiin anigu maan guban been sheegi maayo dab inuu soo gaadhin oo maan gubanin laakiin waxaanu nahay dadkii cagta la mariyay ee wuxuu burburay lacagtii waa la siiyay. alxamdulillah rabbil caalamiin kii bixiyay xaqiisu waa ay inta ka shaqaysay dhammaan waanu mahad celinayaa miisaanka xasanaadka Allah ugu daro. magacaygu waa Hinda Digriye Xasan waxaan ka mid ahaa ganacsatadii suuqa Waaheen ku jirtay. annaga waxay noqdeen wax la jiiray oo jiiray dadamiski iyo wax maxay adinku la tago. alxamdulillah rabbil caalamiin lacagteena siisay shirkadu wayna soo gaadhay wanaga ganacsigeedii dib u furanay. waxaan ahaa dadkii suuqa shiraaqle ku gubtay muqmadleydii waliba khaas ahaan lacagta nala siiyay wayna soo gaadhay kii soo bixiyeen xasanaadka miisaanka Allah ugu daro. ganacsigeedii baan dib ugu bilownay wadiga arkaya waanu iibinaynaa waxbaanu soo siisanay ma sha Allah baanu nay. aamina aadan baa magacayga la yiraahdaa waxaan ahay ganacsatadii suuqa Waaheen ku iibsan jirtay dharka ay kaga gubatay waxa dharkii lacagtii xalay soo gaadhay dharkii waa kuwaas waan ku soo iibsaday ma sha Allah qaybtii baan ma ka soo baal fadhiistay.